السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة ولهانتين بقلنتي وعن وناكسن ميل كستوات كجوجتان دافها عالمka halkan waa timacdan news channel oo aan ku soo gudbino warar ugu dambeeya Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale. Daawada fadlan hadii aad daawanayso muuqaalkan subscribe noo saar, video hadii aad ka heshaan like saar, sidoo kale share soo gaara asxaabtooda kale. wixii tala ahna doogu reeb commentiga hoose. mahadsan. qodobka aan maanta ka hadli doonaan waxa uu noqon doona maxaad u taqaana ama aad ku qeexi lahayd guushu way macaan badan tahay mana la xaqiiqitaan gaar ah oo la isku raacay waxayna dhacdaa xayndaabyada kala duwan ee nolosha sida qoyska, waxbarashada, ganacsiga, siyaasadda, shaqada, xiriirka bulshada, diinta iyo dhaqanka. taasi waxay keentay in guushu ay u kala muuqato qof sida uu arko. tusaale, qofka ganacsadaha ah guusha waxa uu arkaa marka uu faa'iido badan uu sameeyo. qofka siyaasiga ah guusha waxa uu arkaa marka uu ku guuleysto kursi madaxtinimo. qofka ciyaartooyga ahina guusha waxa uu arkaa marka uu dhaliyo gool qurux badan. iyadoo sidaasi ay tahay haddana waxa biyo dhaca u ah xaqiijinta ama gaadhista arrin la tiigsanayo. guushu waa himilo iyo hiigsi aad leedahay oo aad gaadho, mana aha mid ku timaada xag la laaban, sahal, fikir gaamni, hami yari iyo samir yaraan toona. haddaba guushu waa shay cayiman oo la isla yaqaano, laakiin waxa lagu kala duwan yahay heerka guusha. qof waxa guul u ah ayaa qof kale u ah barbilowga guusha. guusha waxa sargooyo hayaanka hiigsiga iyo humaageeda mustaqbaleed ee qofku meel dhigtay. markaas waxay ka dhigan tahay nin wax guul u ah ayaa mid kale u ah bilowga hayaanka guuleed ee uu hiigsanayo. daawada haddaba waxaad ogsoonataa guusha dadka kale ma aha adiga guul darradaada ama fashilkaaga. marnaba ka xumaan qof kale guul uu gaadhay. isdiyaarin, dadaal badan, dooni joogto ah, dulqaad iyo duco ayaa intaba ah sababaha guusha. hadalna waxaan ku soo gunaanaday intuu maan ku gaajaysan yahay guuli waa weli.